maca daalika gaarigii ayaa dhexdiisa waxaa ka kacay holac iyo waxyaabahaas ka kacay kursigan ku fadhiyo dhan yacni maarata waxaa wada qabsaday holac asigii dhan baa holac isqabsaday maadaama holac gaariga oo qabsaday oo dhexdiisa holac ka kacay marka waxaa waa holac in lagu dhinto waa maaragta waa dembi waa ismin kabiir marka gaariga waan ka degtay qareennada iyo xeerlaalinta ayaa isweedaarsaday qodobo sharci oo dhigaya in eedeysanaha maskax ahaan uusan fiyoobeen sidaas darteedna loo diray xaalad caafimaad waxa uu dhinac kasta doodiisa ku xajistay qodob sharci oo u ogolaanayo soo jeedintiisa qodobka kontonaad ee xeerka ciqaabta wuxuu leeyahay qof kasta oo waqtiga uu falku galayay ahaa qof aan xiskiisu dhammayn sabab caruurnimo ama xiseed wuxuu leeyahay marka xiskiisa ay daboolneed kartida fahamka xadgudubka ma qabanayo mas'uuliyad dembi wuxuu leeyahay mas'uuliyadda dembiga ma reebayso qof caatifaysan oo ku jidbaysan arrintiisa ninkaani jidbaddii wuu ilaa hadda ku taagan yahay qof waalan maaha tan labaad in la daweeyey 1 sano ka hor uu dembigu dhacay 1 sano ka hor 1 sano iyo bil buu afkiisa ka qirtay inay ka soo wareegtay muddadaa intaa leeg isaga caafimaadkiisa maadaama dhaawacu yahay aan la badbaadinaya kiiskiisu wuu caddaa markuu caafimaaday oo dhan yahay ayaa maxkamadda la hor keenay ma aha qiil hadda ay qareennadu u raadiyaan in hadda dhakhtar kale loo diro wuu caafimaad qabaa waafiyo laakiin wuxuu ku caadifaysan yahay jidbadii hayse iyo wixii maskaxdiisa ay ku soo shubeen amiiradii shabaabka intaas kadib ayay maxkamadda dhageysatay markhaatiyaal goobjoog u ahaa dhacdada ciidamadii ku qornaa barta hubinta garoonka iyo baarihii kiiska si waafaqsan habraaca dacwadda ayay su'aalo uga weydiiyeen dhammaan dhinacyada fadhigan dhacdadii dhacday 22 Julaay sanadkii tagay gaashaanle muumin xuseen cabdullaahi ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa ku sababeeyay qirashada eedeysanaha maxkamadda horteeda in lagu qabtay falkii uu ku jiray laakiin hadda ka hor mar uu gacanta u galay ciidamada amniga Puntland qaybtooda bari uu iska dafiray ku lug lahaanshihiisa al-shabaab oo asagoo shaqo u jooga gobolada bari Boosaaso lagu qabtay sida uu maanta halkan uga shactareynayo leeyahay shabaab waa ku qanacsanahay iyo fikirkaas aan aaminsanahay muusan isticmaalin maadaama aan lagu qaban cadayn muujinaysa inuu al-shabaab yahay wuu inkiray maalintaas maxkamadda la geeyay process cadaaladeed uu maray wuu diiday wuuna dafiray wuu iska biriyay sidaas ayuu ku muteystay in la sii daayo uga fakaday mataqaana gacanta maamulkii hay tan inuu sheekay maanta uu dhaw shabaab aan ahay waa ku qanacsana fikirka waxa kalifayo waxa lagu qabtay cadayn gaarigu ka soo degtay laga soo dejiyaa qarxay wuu og yahay inuu marnaba bir noqonin ee lagu hayo cadayn sababta keenaysa inuu sheekay uu dhaw dambigaas waa galeen samaxayel isla saciidkii way Boosaaso lagu qabtay inkiray xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida General Cabdullaahi Buule Kemi ayaa maxkamadda weydiistay in eedeysanaha lagu xukumo ciqaab u dhiganta qodobada ay ku soo eedeeyeen markuu afgooyo tagay waalidkii isaga dhalay aabihii hooyadii waxay kula taliyeen inuu isu dhiibo dawladda qiraalkiisa maxkamadda ayuu ka hor qirtay inuu isu dhiibo dawladda oo faxas ka baxo wuu ku gacan sayray waalidkii mar labaad ayuu dib ugu noqday shabaab aakhirkiina wuxuu isku qoray inuu ismiidaamiyo sidaas darteed maadaama uu yahay qof ku adag ilaa hadda maxkamadda horteeda khatartiisana ummadda in laga badbaadiyo u baahan waxaan weydiisanaynaa maxkamadda in ciqaabta u qalanta ee ay qorayaan aayaadka qur'aanka iyo qodobada aan ku soo eedaynay ay ku xukunto maxkamaddu waa mahadsanta qareennada u doodaya eedeysanaha ayaa maxkamadda weydiistay in la xanaaneeyo eedeysanaha loona eego sifaalaha dembiga fududeeyo qofka mar haddii maxallu shaahidkan waxaa waaye wacanil majnuuni hataa yafiiqa inay waalin yahay oo cad tahay taasna waxaa tusinaysaa sida hadda isaga ugu dhaqmaya mahlarka hadda la jooga qof miirkiis qaba inay wax socda fahmayo oo dareensan yahay ayaa laga rabaa inay hadda faham waayo meesha isaga jooga waxaa ka dhalanaysaa in isaga aan ahayn qof maskaxdiis taam tahay oo joogto saas daraaddeed waxaa ku raacsanayo codsigii awokaataa iga horeeyey oo inay loo arko in qof maskaxdiis aan joogin yahay oo xanaano u baahan gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida
gaashaanle sare xasan cali nuur shuute ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda. dhegaysiga garmaqalka dhanka ka ah eedaysanay Siciid Biriq Maxamuud intaas ayuu ku dhan yahay. maxkamadda ayaana go'aan ka soo saarayso. Cabduqaadir Ciise, warbaahinta qaranka, Muqdisho.